بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله waxaan rabaa inaan wax yar ka yara taabto bisha Shacbaan iyo fadliga ay leedahay oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay marka insha Allah waxaan ku guda jirnaa bisha Shacbaan bishan Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay faa'iido fara badan iyo fadli fara badan waxaan soo qaadan doonaa laba xadiis ama saddex xadiis ama afar xadiis oo ka hadlayaan bisha barakaysan ee Shacbaan bisha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وبال دتك مشخوصا وبال أدحيس رجب رمضان أدحيسه دتكني أي مشخوصين بشاس وبال لكريال أعماشه بشا جذه هذا loo bandhigayo rabbiga caalamka barbaariyaha wuxuu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam fa uhibbu waxaan jeclahay an yurfa'a amalkayga la koryeelo wa ana saa'im anigoo sooman nabiga meeshuu ku dhahay waxaan jeclahay in amalkayga la koryeelo anigoo sooman adiga maxaad sugaysaa marka faa'iidada koowaad ayaa taas ah tan labaad dadka way mashquulsan waa bil dadka mashquulsan oo ku mashquulsan diyaarinta iyo isdiyaarinta bisha barakeysan ee Ramadaan iyo soo dhigista cuntooyinka lagu afuri doono ayuu ku mashquulsan yihiin xadiidka labaad wuxuu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان فكان يصوم أكثر شعبان ويصله برمضان نبي صلى الله عليه وسلم محمد صوم جري لو بلود اسكو حريرته لو بالحويان شعبان يا رمضان فكان وحوا يصوم متصوم أكثر شعبان متك بدن بيش بدن إلا مرة قارن حسوم جرى النبي صلى الله عليه وسلم بدن كيدو مرة قارن كل جيده ويصله يعني كدر جري برمضان أيوكو حريرين جري لو بلو كامل يصوم جرى مرة قارن شعبان بدن كيده يصوم جري إلا وحير ميانه taasna waxaan ka fahmaynaa nabi sallallahu alayhi wasallam inuu soonka Shacbaan la soomayo uu badin jiray marna ilaa wax yar uu reebi jiray mooyaan xadiidka kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay faa'iidada ay leedahay bisha Shacbaan 15 Shacbaan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa u dambi dhaafayo ilaa laba qofood mid mushrik ah iyo mid mushaahin ah nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن النبي صلى الله عليه وسلم وحال طالع يعني الله سبحانه وتعالى طالعنا يا هوينك نصف من شعبان إله سبحانه وتعالى نحن قدام بدافع خلق جيسة إلا qof gaal iyo qof qalbiga qofka ku hay walaalkiisa ama uqdad ahaado labada qofood Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dambi dhaafayo ilaa inta kala mooyaan taan waa faa'iido ay leedahay marka waxaan xadiidkan wuxuu noo sheegay in aan umada iska cafino na tusiyay in aan noqono kuwa qalbiyadooda nadiifsan intii Ramadaan la gaarin oo aan noqono dad isjecel walaalo ah xadiidkaas sida ay noo sheegay marka walaalayaal bishani